تي مدحدي حماس خليل حية منول يهي إسماعيل هنية اللي هنا إيش خالد مشعل حالتي سالكي كودن بيسي ما دام لي الوالد لي أرنت أنا كهذا الدنيا بإذن الله تعالى إيوه قاب كويرك هو دعي هرتا أنكم بالله وصبر كان وجوري لجو ويرري هل كان سيدات أركيسان معناها وقيبت بربورتي إله أمر كيسة قاعدة وهل كان مد أيقط الله هل كان مد أيقط الله سيدا طبعا وربعين تأشياء جيسو سيدا قرشيسنات حد أوفيرسو إن حماس تدو حد أحد اللي يقول أحجره سيدا قرشيسنات قاعدة أي أهيت إن هاي أي فريستان معناها وحنقول جدا هولكا شركة بلانت كانوا أها إن فريستان لكن كان يكشر الدونان أنت لكن كان أين آذن أي خار كميد هل كان يفديين بل أوفيرسو إلى فيري مركب ويرك الصقور دعي ويبي بس أنا عنده أوكي إنا شيء إن كلام أخانه أوكي وكنا أوفيرسو إيريادان خريحي سيدو أوينا يعني كامل يعني كلام هذا أوفيرسو مركب الصقور دوي فيري مركب دعايو هل كان مثل هالكاس عفوا واكا أوكي بلو فيرسو ويني ده قيبت هراد أركيسة هذا ويان بلو فيرسو جبت أي كنت رجش إسرائيل إننا حل كرابين ويرك سؤال عهرته وحا كلن سنة حجانك حماس أو إسرائيل يمريكان كخيانة أي كسميين إسرائيل ويأخبشال لي رهشيسكي أبين كان بلغواكا سايح ده أخبار لك السوينا محل سوى يا مركه طبعا إن الشيران أي كل مان سي أيون قوانك وأسو صاران حلقي كل ما ين ayaa hee weerarkii u dhacay marka aan ku tusay buildingka qaybta weerarka oo ka dhacay ay ahayd inay fariistaan laakiin halkan ay ilaahay amarkiisa fariisteen qaybtaana intii ku sugaysay ayaa dhibaato ku gaartay okay ilaa hadda tan waxa la xaqiijinayaa wiilka uu dhalay Khalid Khaliil Hayade waa hogaamiyaha Hamas waa akhbaar cusub hadda soo dhacday saad arkaysaan Khaliil Hayade wiilkiisa oo ku dhintay wala xaqiijinayaa guud ahaan waa shan marka wiilkiisa ku jira waa hogaamiyaha Hamas wiilkiisa iyo mudiirka xafiiskiisa hogaamiyaha Hamas mudiirka xafiiskiisa asana ku dhintay iyo saddex kale saddexda waa ayo lama sheegin marka total waa shan inta dhimatay wiilka Hamas taliyaha Hamas wiilkiisa iyo hogaamiyaha xafiiskiisa ama mudiirka xafiiskiisa labadaas qof rag waaweyn ayaga hadda laga sheegaya arin waxa jirtay Sky News iyo Al-Arabiya ay qoreen kadib ay kala laabteen oo ah Khalid Mash'al in la dilay weerarkan qaabka u dhacay marka aad fiiriso in Israa'iil ay ku dhiiratay hogaankii Hamas oo dhan inay hal mar qadar ku disho oo ay madax banaanadii qadar ay burburiso oo ay ku xadgudubto xaaladda markaas u fiiriso maxaa ku muuqanaya waxa iska sameeyay ma ahan طبعا مريكانكا جرين لايت كسيي صعده واد بixi kartaan red light green light soo ayama maqli jirin siyo kale daqiiqada ka hor miya mise adiga kulay saacada ka hor sida akhbaarta soo dhacisay sheegayso ayaa Mareykanka loo sheegay sax ma tahay saacada ka hor in loo sheegay ha maya dadka ha dhahaya in saacada ka hor iska dhaafe ayaa ma kor ogaa kuwaasa dabcan badan kuwana waxay leeyihiin waa laga yaabaa ayada lagu qancinaayo qoladan Arabta yaanihi qadar iyo Sacuudiga iyo in loo sheegay adiga xogaa yar ka hor macnaha Mareykanka inuu gadaalka ogaado camal laakiin tan kala ka adag saadiga kula tahay midda kale cambaareen marka ay noqoto qadar intaasoo afheelaysa bal adiga wad cambaareenaysa oo hebel heblayo cambaareenaysa adiga waa cambaareenayna taas waxaan ula jeedaa ma taqaana Sacuudiga cambaarey oo ku tilmaamay arintan arin macnaha aanan balaay ay tahay oo la iska yeelayn imaaraadka cambaarey turkiga cambaarey qadar madmido ninkii Antonio Guterres ma aha ama saaso kale Antonio Guterres waa kana asagoo naftirkiisa ku daaranaya cambaareynaya wuxuu leeyahay wada hadalkii oo socda in ay Israa'iil ku dhiirato weerarka noocan oo kale inay geysato wax la aqbali karo ma ahan Israa'iil nabad haday doonayso nabad sida laguma helo oo halkan ku bood Turkigana sidaas oo kale hadalka Turkiga aad u weynaa wana dheeraa waxay leeyihiin Israa'iil horta ma waxay isleedahay inay waxaan ay sameynayso ay ku helayso nabad
maxaa yeelay nabad kuma heli karto inay maalinba waddan ay aado sidaa darteeda inay argagixis samayso oo ay waddan dhan ku xadgudubto waxaan leenahay qatar ayaan la jirnaa marka wasiirkii arrimaha dibadda ee turkiga waa Hakan Fidan isla asaga weeyaan kan cafwan okay madaxweynaha ama xafiiska madaxweynaha hadal ka soo baxay oo ay leeyihiin qatar waxaan ku taageeraynaa xaaladan ay hadeertan macnaha gashay sidaas oo kale macquul ma ahan qatar oo dhexdhexaadiyaashii kamid ah in macnaha arintan lagu sameeyo arintan waxay si cadeynaysaa waa xafiiska madaxweynaha wixii ka soo baxay weeyaan almuhim taa halkaas naga tageynaa qatar maxaa xaaladeeda ay tahay weliba cafwan intaan qatar xaaladeeda ay tahay aanan aadin waxaa la sheegayaa xaaska akhbaartan ma cadeyn karo laakiin waa kaasa waan calaamaday kulay waa xaaska Khaliil Xaya ayadana inay dhimatay oo lagu dilay ayaa la sheegayaa qaraxa kulay waa akhbaar cusub oo degdeg ah soo dhacaysa hadda waa xaaska Khaliil Xaya hogaamiyaha Xamaas almuhim taana akhbaarteeda waan sugi doonaa maxaa ka sax ah laakiin wiilkiisa Al-Jazeera cadeynaysa xataa taasi waa taa dhinaca kale waxaa dhaawacmay hadda sida akhbaarta sidaas kale sheegayso Hisham Qasim oo ah hogaan kamid ah hogaamiyaasha Xamaas asagana dhaawac ayaa lagu sheegayaa inuu dhaawacmay okay waxaa la tirinayaa kulli saacadaha soo socdaan 100% ogaan doonaa bidabt wixii dhacay sida u dhaceen okay xuutiyiinta way soo hadleen waxay dhaheen horta waan cambaaraynaynaa wixii dhacay oo Israa'iil ay samaysay hana ogaato inaan isaga hareynin kholadan macnaha kaliyan dhihi karaa marka in noqoto ilaa kuwa kale dhan waa af shalay yaa og ma xusuustaa Israa'iil wixii lagu dhigay xuutiyiinta ku dhigeen daraad ma xusuustaa Israa'iiliinta waxa lagu dhigay xuutiyiinta ku dhigeen macnaha xuutiyiinta waxay noqdeen kaliya rajada iyo taageerada ay helayso Falastiiniinta ay helayaan ama Xamaas ay helayso ay noqdeen almuhim xuutiyiinta waxay marka arinta la iskaga mahari doono waana maxaan ku dhahay u aari doonaa guud ahaan reer Falastiin arinta ka dhacday khaasatan wafdiga lagu weeraray Qatar Dawxa arintaana yani arin aan aqbalayna ma ahan kulay macnaha xuutiyiinta hadda waa ogtiin marka cid dhihi karta ma ahan xuutiyiinta waa iska hadlaan iyo kada ay ma jirto xuutiyiinta hadday hadlaan macnaha hadda way hadleen almuhim waxaa kaloo soo baxay akhbaar Israa'iil akhbaartan ka soo baxaysa waxay leedahay ma aanan helin ihsaa'iyad ama adiga xisaab ama koobid ma aanan ku sameeynin dilkii ama shirqoolkan sameeynay inta qof ay ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay waan soo gudbin doonaa saas oo kale marka waxa ka cad Israa'iil inaynan haynin laakiin adiga almuhim Al-Jazeera maadaama hadda xaruntaasi ay joogto oo saldhigeeda uu yahay ayadaaba soo hormarto dhahaysa hebel la dilay hebel la dilay hebel la dhaawacay kada iyo marka xaaska hogaamiyaha Xamaas arintaasi kale arki doonaa laakiin wiilkiisa waa la cadeynayaa in la dilay mudiirka maktabkiisana waa la cadeynayaa in la dilay almuhim intii ugu dambeysay waa intaasi goodiga xuutiyiinta marka aan fiirino asagana waa factor kale oo jira qaraxa guud ahaan marka aad fiiriso sida uu u dhacay iyo xoogiisa marka la fiiriyo buildingka oo dhan dhulka uguma inaan talgelin inuu galo qayb ay ka duqeeyeen qaybtiina dabcan waa taad aragteen sawirka haddaan ku celiyo mar kale waatana macnaha qaybtay ugu talgal almuhimkii Ismaaciil Haniye taqriiban saasoo kale u ahaa u fiirsada qaybtan kaliya buildingka intiisa kale uu taagan yahay inta waa intii ugu dambeysay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh